عليكم ورحمة الله وبركاته وويلكي نقولد iyo isku soo noqod kale oo xiiso leh sidaad iiga wada barateen markasta barnaamij xiiso leh ayaa idin soo gudbiyaa ama wax idinka faa'iideynayna run ahaantii anigoo maanta ayaa waxaan arkay scholarship run ahaantii oo weliba deadline-kiisu uu dhow yahay ama waqtigii loogu talagalay in ardaydu ay soo xareysto applicationadu uu dhow yahay oo bisha labaad ah adigu kuwaad 31keeda adigu bisha labaad 12keeda ayuu ahaa run ahaantii markaan arkay waxaan jeclahay isla markiiba inaan walaaladeeda Soomaaliyeed aan la wadaago maxaa yeelay adna faa'iido ku tahay anigana Ilaahay baa iga abaalmarinay insha Allah haddaba maxaa idin sida waxaan jaamacadan waxaa la yiraahdaa University of Brunei darussalam scholarship waa wadan yar oo ku dhex yaala Malaysia iyo China u dhaxeeya run ahaantii reer Asia aad u yaqaan barnaamijkaas iyo jaamacadaas waa wadankaas waa wadan yar oo aad u fiican dhaqaalihiisu scholarship wuxuu bixinayaa adigu adduunka oo dhan ah waxaa laga yaabaa in scholarshipyo ay jiraan inaga ahaan markaan Soomaaliya joogno noo fudud iyo scholarship inay jiraan inaga ahaan Soomaaliya markaan joogno waa adag adigu markaan anigu aan joogo salaan Soomaaliya scholarship European waxaa laga yaabaa in nasiib qof kasta nasiibkiisu saacado laakiin ay helitaankiisu aad u yar adag tahay maxaa yeelay waxyaalaha qofka laga rabo ama processada waxa laga yaabaa inaad buuxin karin baa laga yaabaa sida security process oo kale warqada boolis soo qaado kale inaad warqad boolis soo qaadato hadhowna lagu yiraahdo warqada booliska ma aqoonsin oo kale waxyaalaha dhalashada oo kale runtii way iska dhib badan yihiin processada ama scholarshipyada Europe ama galbeedka oo kale laakiin scholarshipyada Asia oo kale qof aniga ahaan markaan Soomaaliya joogo saarhan aad bay ugu fudud waxa laga yaabaa in waxyaalo badan oo kaasi ugu adkaan inuu kan ugu adkaan karin haddaba haddii aan idin sheego scholarshipkan muxuu yahay scholarshipka horta waa laba waa master degree inaad diyaarinayso iyo inaad hore master u haysto laakiin PhD aad ku darsanayso maasha Allah saayid ku sheegay waa jaamacadda hore ku soo sheegay qofku markuu scholarshipka xareysanayo wax lacaga oo laga baahan yahay ma leh diiwaangelintu wax oo dhan okay rankiga waxay ku jirtaa run ahaantii rankiga 22aad ku jirtaa marka loo eego jaamacadaha dunida University of Brunei aad ku qoraysaa darussalam scholarship okay saawadu ku sheegay waxyaalaha laga helo waxa kamid ah businesska artska science-ka health science-ka waxyaalaha luqadda waxa kale ay dhigtaa luqadaha Asianka ama hadii adiga aad luqad u baahan tahay kale waxyaalaha kale dhigto waxa kamid ah technology-gana way bixisaa haddaba haddii aan wax yar istaagno horasaydu ku sheegay Brunei waa wadan yar oo ku dhex yaala Malaysia iyo China haddii aan saan ugu dhawaaqay khaldan tahay waxay bixisanaa saydu ku sheegay waa master iyo PhD ayuu ku saabsan yahay scholarshipkaasi scholarshipka deadline-kiisu waa 28ka February 2021 soo arkaysaan haddaba waxyaalaha scholarshipka marka qofka scholarshipka uu rabo inuu information ka sii ogaado saan hore ku sheegay diiwaangelinta waxa soo dhan waa free okay waxa inta ku dheer in monad qofka bil ahaan lacag loo siinayo 500 adigu 6 bishii bil kastaaba waxa laga yaabaa lacagtii inay double noqoto laakiin bilaha ugu horeeya waxa inaad ugu siiyo 500 oo lacagta wadankaas okay compass-ka iyo waxyaalahaas oo dhan noloshaada waxa laga adigu si halkan lagu xuso kale in noloshaada loo ka fargareyn karo tusaalahaan caafimaadka oo kale hadii adigoo unfaal ama aad shil gasho kale adigoo gaari wato kale ama hadii si kadis wax kugu dhacaan oo kale in waxa soo dhan dawladda ay kafaalo qaadayso one road trip economic class ticket inuu jiro xataa in lagu siinayo economic class ticket ama business class ticket صراحة إن ديارة one class مر أدي صراحة جامعة حناتو كله مركز حناتي وحلقة وقفك إنه ودن خير بحكله economic ticket إنه وسينا يو waxaan oo dhan waxay ku xusan yihiin website-ka insha Allah halkan baa idin soo dhigi doonaa
marka intaasna lagu siiyo waxaa lagu siin doonaa weliba marka tusaalahaan marka qofku uu dhameeyo jaamacadda buug waxaa la yidhahdaa buugga tesiska jaamacadda ayaa jiro la xidho la qoro buugga marka waxyaalaha qaar researchka ood buugga ku samaynayso waxaa laga lacag inay kaa gasho halkan waxaa ku qoran xataa lacagta researchkaasi haddii researchkaasi uu research lacag badan u baahan yahay xataa in lacagta xataa lagu siinayo run ahaantii waa jaanis aad iyo aad u muhiimsan oo aad iyo aad ardaydeena ama qof kastoo waxbarashada ku xidhan sida anigoo kale aad iyo aad ugu muhiima waxaan rajeynaya insha allahu tacaala qofkii jaanis u haystaa in uu ka faa'iidaysto uuna hore u gaadho halkan ayaa idiin soo dhigi doonaa insha allah inaad hore usii gaadho bal nasiibkaa ku tijaabiso waa lacala waa inta soo insha allahu tacaala kuu fudaada ood waxbarashada freegaad heshaa noloshaadana horumar u gaadhsiisa waxyaalaha oo masterku bixinaya waxaa ka mid ah arts englishka inaad barato environment study geography history waxaa kaloo ka mid ah psychologyga aad buu u badan yahay waxyaalahay bixiso waxaa kaloo ka mid ah public health ka mid ah clinicking nursing midwifery adigu waxyaalo aad iyo aad u badan ayay coursiga bixisaa adigu markii aad gasho abka aad qaybta diiwaangelinta gasho applicationadaadi wixii meesha lagaaga baahdo meesha ay ku xusan yihiin adiga ayaa dooranay wax qaybta aad u baahan tahay haddii aad master u baahan tahay masterkaad gelaysaa dabeetana waa fildigaad sii dooranaysaa economic social economiga mise dhaqtarnimada adigu waxaad u baahan tahay adigaa garanay kulley haddii aad u baahan tahay qaybta luqadaha sii baranaysaa haddii aad u baahan tahay engineeringka master engineering master engineering ayaa ku jira waxaad baran kartaa chemical engineering iyo system engineering waxaa ku jiroo kale master of doctor of waxaa material science-ka iyo energy adugu waa waxyaala aad iyo aad u badan baa halkan ku xusan scholarshipka wuxuu u bannaan yahay all around qof kasta oo adduunka meel kastuu ka joogo scholarshipkan wuu soo xareysan karaa wayna u bannaan tahay okay maxaa kale oo scholarshipkan uu bixinaya waxaa kamid hore isu sheegay master degree programka iyo PhD degree program xataa wuu jira waa laabay program imika ayaa arkaya oo degree yani salaam bachelor kale qof secondary school haysto kale oo laftirkiisa uu soo codsan karaa waa chance aad u fiican runtii maan arkay imika aan arkay qofkaas waxaa kaloo kamid ah qofku inuu tusaale ahaan luqadda ingiliishka aad ugu hadli karo oo shahaado luqadda ingiliishka haysto qofka haduun haysan xataa waxaa laga yaabaa inuu uu hadalkiisu ama excelkiisu ama aad ugu fiican yahay luqadda ingiliishka saan filaya waxaa laga inuu jiraan malaynaya koorso luqadda ah sidaad ugu sheegay waddanku wuxuu dhexeeyaa Malaysia iyo China badanaa markaa waddanku kala bar wuxuu ku hadla luqadda Malayga marka in qofku luqad Malay inuu baranaya ayaan filayaa laakiin halkan kuma xusan okay markii aad emailkiisa iyo wuxuu halkaa gelinaya passwordkiisa markuu halkaa geliyo dabeetana koodhkaa yar si qofka inaanu qofku aanu computer ahayn wax saasa loo ogaa security ayuu halkaa koodhka ku celinayaa kadib wuxuu odhanayaa process buu odhanayaa markuu uu process yidhaahdo wixii informationa sidaan filayo anigu weli maad jaabin hadda ay ugu horeysa wixii informationa waxaa laga yaabaa in iyagu ay kugu soo diraan Gmail markay Gmail kugu soo diraana waxaa laga yaabaa inay ku soo diraan formkii la soo buuxinayay ama wixii information ay Gmail bay kugu soo diri doonaan insha Allah taala sawirkaas jaamacadda magaceeda wakaas processkan halkaas ayaa laga gelayaa insha Allah halkan ayaan idigu soo dhigi doonaa linkiga waxaa la yiraahdaa ama page waxaa la yiraahdaa UBD admission sawir arkaysaan halkan ayaan idiin soo dhigi doonaa insha Allah taala runtii waa chance aad iyo aad fiican walaalahayga Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa inay chance kasta oo scholarship ay arkaan inay ka faa'iideystaan adiga waxa laga rabo male laakiin adiga ayaa naftaada ku soo kordhinaya fadlan ka faa'iideyso markaste Google garay scholarshipyada baad chanskaaga waxaa laga yaabaa in dhowr scholarship hesho waxaa laga yaabaa qaar inay kusoo didaan waxaa laga yaabaa marka ugu dambaysa inaad hesho
fadlan nolosha ka daalin markasta dadaala ayaan leeyahay waxbarta si beri ka maalin adiga waxbarashaas ku anfacdo wadankaaga u anfacdo noloshaada iyo familkaaga iyo wadankaaga iyo wax kaste sidii aad u horumarin lahayd fadlan ka fikir maanta dhalinyaro ka fikirna maanta beritoole laakiin ka fikir mustaqbalka dheer Soomaaliya maxaad qaban kartaa dadkiina maxaad u qaban kartaa si arkaysaa dunida waad arkaysaa qof kastaaba dalkiisa waxaa dad dhalinyaro waxbartay ayaa hormariyay nuclear soo saaray waxyaalo maanta la ikhtiraacyo waad arkaysaa talaalka corona qof arday qaxoonti ku ahaa wadan ayaa cilmi bartay kadibna soo saaray marka fadlan isdhiganina fadlan scholarship raadiya waxyaalo muhiima qalbigiina tuujiya ma aha inaad social media soo fadhiisto qof caaydo ma aha social media soo fadhiisto wax iska sheegto fadlan noo faa'iide aan ka faa'iideysano amana aan waxaad samaysaa waxaad noqotaa qof creative oo wax muhiima la yimaada oo wax bartay oo adduunka wax ku soo kordhiyay magaca Soomaalimada kor u qaaday waa hadalkiina ku sii dheeraan mar insha Allah taala wa in salaam ya wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh